waxaad la socotiin inay xildhibaano dhimi yihiin ugu yaraan waxaa dhimay 21 xildhibaan oo maanta xaq u lahaa inay ka qayb galaan ayaa dhiman xildhibaanadaas ayaga waxaan ka codsanayaa dadka gacanta ku haya sida ugu dhaqsada badan leh inay hawshooda soo fududeeyaan ayadoo la ilaalinayo 17 September waxaa ansixiyay baarlamaankii ka horreeyay waxaana burin kara oo kaliya baarlamaanka waxaan arkay muxuu ahaa dad dhahayo 17 September waa laga tala baxay lagama tala bixin waa qaraar baarlamaanka un baana burin kara baarlamaankii 10aad wuxuu sameeyay waxaa burin kara baarlamaankan haddii baarlamaankan cod as u qaado uu yiraahdo 17 September waa laga tala baxay markaas ayaa meeshii la doon lagu qaban karaa laakiin weli 17 September ayaa taagan ma rabna baarlamaan kala kalar ah oo muxuu ahaa qaarna 17 September ay ku soo baxeen qaarna ay ku soo baxeen muxuu ahaa 17 September qodob jibinaya ay ku soo baxeen waxa baarlamaankaas wuxuu noqonayaa baarlamaan kala kalar marka waxaan ka codsanayaa maamulada ay ku dhimi yihiin inay dhowraan sharcigii 17 September inay ilaaliyaan anigu intaasaan ku gaabsanayaa aad iyo aad u baadin